صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدحda degmada aqoon-yahanka cuqaasha odayaasha haweenka dhammaan xildhibaanada degmada waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib ilaahay baa mahad iska leh, ilaahay baa mahad aan la soo koobi karin oo runtii waxa weeyaan maanta xaflad aqoon-yahanka iyo cuqaasha iyo dhammaan madaxda degmadu runtii waxa weeyaan isugu yimaadeen oo ah tii ugu horeysay markaa degmada caynkan oo kale ay ka dhacda. runtii waxa weeyaan waxayna xambaarsan tahay jaamacadda markaa waxa weeyaan laga dhisayo degmada Garadag. runtii waxa weeyaan taasoo wax weyn ka bedeli doonta bulshada deegaanka iyo waxa weeyaan horumarka degmadaba. runtii waxa weeyaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ciddii isku taxallujisay jaamacadda markii hore waxa weeyaan keentay Ibraahim Barre ugu horeeyo falilaahi alxamdu, ilaahay isagana miisaadka xasanaadka ha ugu daro. inagana waxaa laynaga rabaa inaynu intaa kaga hadhno maaha, dadaalkii waxa weeyaan jaamacadda ku dhismi lahayd ayaa runtii waxa weeyaan maanta barbilow inoo ah. maanta waxaanu jecel lahay maadaama jaamacad ay degmadii yeelatay, jaamacaddaas oo runtii waxa weeyaan ku taala bartamaha Somaliland aan oran karo. waa jaamacad haddii waxa weeyaan runtii aynu guntano jaamacaddaas waxa weeyaan looga iman doono bari iyo galbeedba. waa jaamacad lagu baranayo aqoonta sayniska oo ugu horeeyo culuumta markaa kheyraadka dabiiciga ah oo dadkeenu say deegaankeena waxa leeyahay dhul ballaaran marka waxa weeyaan abaaraha ku soo noqnoqda. waxaa loo baahan yahay dadkeenu dhammaan miyi iyo magaalaba si ay noo wada gaadho oo dadku markaa dhulka ballaaranna aynu uga faa'iideysan lahayn. Garadagna ay noqon lahayd geedkii nabadda maadaama ay ahayd. waxaan jecel lahay inay mar labaadna noqon doonto hooyadii waxbarashada in bari iyo galbeedba looga iman doono oo iyadoo ku taala gobollo badan bartamahood, sidoo kalena ku taala bartamaha dalka Somaliland. falilaahi alxamdu, maanta waxaan ku wareejinaynaa maamulka degmada iyo maamulka markaa waxa weeyaan waxbarashada ee heer degmo buwaag dhan 300 oo buug oo aanu ugu talagalnay markaa waxa weeyaan jaamacadda. mana noqon doonaan kuwii ugu horeeyay, insha Allah waan wadi doonaa xidhiidho fara badanna dadka markaa waxa weeyaan Somaliland, dadka Garadag u dhashay gudaha iyo dibadda inta joogana waxaanu ka codsanaynaa inaynu ka wada qayb qaadano. ninkii waxa weeyaan markaa low dhagaxa ku darsada iyo ninkii xabad sibir ku darsada, jaamacaddaas waxay noqonaysaa mid wax ka bedesha deegaanka markaa waxa weeyaan dhalinyartii labeenta ahayd ee sanad walba inoo soo baxaysay magaalada way ka guuraan, waxay camiraan gobollo kale iyo degmooyin kale. anigu markaan dugsiga sare groupka horeeyay ka baxay baan ahaa, waxaan tagay jaamacadaha galbeedka ilaa iyo maantana way sii socdaan. waxaan se rajaynaynaa haddii aynu dadaalo in galbeedka iyo barigaba laynooga iman doono insha Allah biidnillaahi kariim. dadkeenuna aanay dib dambe ama dhalinyarada labeenta ah ee sanad walba ka xaalufaysa magaalada ka sii socotaana inay joogi doonaan magaaladooda ay dugsiga hoose iyo kasaraba kaga baxeen inay jaamacad ka heli doonaan. taasuna waa nasiib ilaahay maanta waxa weeyaan inoo suuro geliyay, balse runtii waxaanu ka codsanaynaa oo baaq u diraynaa inaynu wada dadaalo dhammaan dadweynaha bulshada nooc kasta ay noqoto baxda waxbarashada iyo dhalinyarada aqoon-yahanka qurba jooga iyo qolqol joogaba. jaamacaddaas sidii markaa waxa weeyaan ay noogu suuro geli lahayd, waxa weeyaan ayna u dhismi lahayd, ayna u noqon lahayd mid caana oo markaa waxa weeyaan bariya galbeedba looga yimaado, oo ay noqon lahayd mid jaamacadaha kale wax dheer oo ay ka soo baxaan dad hogaamiyayaal. in fara badan bay markay dugsiga sare Garadag lahayd dad hogaamiyayaal ka soo baxeen, in fara badan bay dad aqoon-yahan ka soo baxeen. scholarship-ka maanta Somaliland la bixiyay waxa ugu badan gobolada bariga ardayda ka soo baxday dugsiga sare degmada Garadag. waxaan jecelahay kuwa jaamacadda ka soo bixi doonaana inay noqon doonaan kuwa markaa waxa weeyaan bedeli doona maadaama gaabka sare uu ahaa dugsi sare oo kaliya ay ku tartamayeen, maanta inay kula tartami doonaan heer jaamacadeed dhammaan Somaliland iyo geeska Afrika oo dhan. khayr baan idin rajaynayaa, waxaana runtii idinka codsanaynaa in jaamacadda loo wada guntado aynuna ka wada qayb qaadano. dadka deegaankuna ay sidoo kale waxa weeyaan iyo maamulka iyo dhalinyaraduba aanay noqon runtii waxa weeyaan jaamacaddaas cid gaara lagu haleeyo. waxay faa'iido u tahay dhammaan mujtamaca iyo horumarka degmada ee aynu in badan doonaynay. taasaa maanta kow inoo ah, walow inkastoo ay naga habsaantay, balse haddii aynu maanta haleelay
waxaan idinka codsanaynaa waxa weeyaan inaynu garab galno cid kasta oo waxa weeyaan taageeraysa ama jaamacadda wax ka qabanaysa inaguna qof waliba qofka ugu yari qofka dhagax geysta ama xabad jaajuura geysta inuu noqdaan idinka codsanayna haddii ilaah yidhaahdo aad iyo aad baan idiin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu